waxa wadanka naafeeyay inay nimanka yihiin waxa nadda isku haya inay nimanka yihiin waxa nugulka bacadka dhigay inay nimanka yihiin waa nuxurka ay xambaarsan tahay qaybtani 12 ee silsilada ablaya wixishoodkii halkee baad ku hortay riyada abwaan xasan jaamac xuseen xasan turum oo ku magac dheer tilliba meel libaax soo galay la uma joogaysay inuu baarqabkii diiday baan u malayn tilliba gabyaagan ka soo jeeda gayiga sugaantii gabayada looga haray waa dhulkii kacdoonkii daraawiisheedu ka bilowday qalcadii dhaadheeraa ee fariisimaha u ahaana ay ku yaalaan bal aad soo dhoortideen sool iyo laaska caana ku soo dhar tilliba oo afareeyay muqdisho eber ka dhigay kadib markuu ku soo daayay ereyo mahiigaan ee dana saaray ragga oo u sheegay inuu wax isjafay is haysta ummadana halka dhigay inay iyaga yihiin abwaan turumba oo buunka afuufayna wuxuu yidhi xantii fulayna moogay xaajada dhabteedii idinkuba xisaabsho xadkii eebbayaasha dhiig islaam xalaashaday xeero dhaafshay maatida xaaska bahalo yaadhig tilliba abwaankan sugaantiisa u badan tahay dhinaca gabayada ayaa baarqabkii muqdisho guurowga ka soo tiriyay laba geed kala dhacay ilaan lugi faras ma gaadhin wuxuuna rag xilkoodii gabay baa geeraar xalmoodo xusul duubka ugu jira xaqiraada dumarkee goormay xisaabtami qaybtan oo noqonaysa qaybta ugu dambaysa ee weerarka iyo difaaca ee xagga hablaha heesta xigta ay gabdhuhu ay soo qaadayaan ee midda 14aad oo noqonaysa qaybta ay habluhu silsilada kaga baxayaan ayaa waxay ku qotontaa isxaalmarin iyagoo kala xaqsiinaya ragga kiisa xila bilaalkee iyo kooda xilkaska inaan isku wax loo xambaarin ayaa qaybtani waxay noogu luuqaynaysaa xidigta qalbiga furan oo marka ay rakada fanka soo gasho loo wada riyaaqo balse markani hawada haweenka lagu jiraaye diyaaradii kor martaba soo ridaysa nimco happy xidigtan xudunteedu ay taalo dhulkii quruxda badnaa ee ciida gudubna waa galgaduud ee caasimadiisa caabudwa ee cilmigu yaalay hogaamiyaasha ugu caansan gayigana ay ka soo baxaan ayaa ugu horrayntii dabgelisay dariskeeda kaadheen kalena duldhacday caradii difaacii ay ugu jirtay xayndaabkii haweenke ee raggoo daf soo yidhi nimco habi hoboladan ku caanbaxday heesaha daadiska ee daayartu jecel yihiin hees hore oo ay isla qaadeen maxamed kaadheerina taasoo ay hal iyo eber dirtay ayay silsiladana 2 iyo eber ku dhaaftay waxayna tiri haweenka xariirta ee xaafadooda joogay iyagoon xumaan gelin xaqdarada ku maagtaan haddaad xeer ka dhigateen waa xaajo uguba xisku qaadan waaye intaydan xabaal gelin raggu ha is xisaabsheen nimca habi fanaanadan isku wadato 2 jabo heesaa iyo jilaha fadhigeeduna yahay xarunta dalka Kenya ee Nairobi ayaa mar kale duulaankii raggu soo waday ee kaadheeri horkacayay keena gelisay nimca oo ku eedaysay nimanka markay gabdhaha nucurka iyo nimcada kala baxaan oo noolaadaan ay nuuqnuuqsi iyo nuuxnuux bilaabaan kadibna sidii webi naqay nuudooda la waayo oo nag noqdo inta gabar xaruur u eg markaad xaada dhabankii iyo xooxda ka maashaan intaad maalmo xigataan xaggee kaga dhaqaaqdaan nimco oo ay isla wada qireen abwaaniinta fanaaniinta iyo bahda cabdiaskari tuur inay tahay xidigta laxanka jini shume siduu yahay cagta ula heshay ayaa mar kale cirka u lalisay xidigii reer kismaayo ee lahaa raggu inuu xigaan yahay xilkas iyo suldaan yahay idinkaa xaqirayo xumo unu joogo oo xilkoodii ku haysta habi oo waxaasoo dhan hawada ku laashay ayaa waxay tiri raggu markuu xumaadee xagaldaaca u galo xubintuu lahaa iyo gudan waaye xaajada dambay noqotay iyo xeel inaan xadhigga qabanno xukun aanu doonnaa maalmaha soo socda waxay jawaabtay sane laga filayaa burco oo la dhihi karo waa budigaha silsiladan lacanka iyo musiga waa jini ishumi iyo maestro sheego bishaar waa soo saaraha silsiladda cabdiaskari tiibo idinku duwaya xidigta lowga u duugatay difaaca hablaha nimco habi geeraar xalmoodo xusul duubka ugu jira xaqiraada dumarkee goormay xisaabtami raxilkoodii gabayba geeraar xalmoodo
markaad xaada dhabankiyo xooxdii kamaashaan intaad maalmo xigataan xaggii kaga dhaqaaqda inta gabaadh xaruureed markaad xaada dhabankiyo jogging.